dowladda Kuuriyada Waqooyi waa dowlad ka soo horjeeda dhammaan diimaha samaawiga kumana dhiirigeliso shacabkeedu inay cid caabudaan inta badan dadkeeduna waa mulxidiin aan waxba caabudin cid kaliya ee ixtiraamka ka mudan ee ay muujiyaan waa madaxweynahooda Kim Jong Un oo ay haystaan inuu noloshooda leeyahay waxaa jira dad yar oo aaminsan masiixiyadda iyo in kale oo haysto madhabta buudistaha ee diinta Hindiya kuwaas oo aan iyaga laftoodu haysan ogolaansho la xusi karo oo ay dariiqadooda ugu cibaadaystaan arrinta jirtaasi waa inaanay halka ahayn bulsho islaama oo degan dadka kaliya ee muslimana ee laga helayaana waa diblomaasiyiinta iyo howlwadeennada safaaradaha dalalka islaamka ee xidhiidhka la leh Kuuriyada Waqooyi sida dalalka Iiraan, Indonesia, Malaysia, Suuriya, Masar iyo dalal kale waxaana Kuuriyada Waqooyi ku yaala hal masaajid oo lagu magacaabo Masjidur Rahmaan waxaana safaaradeeda ka dhaxdhistay dowladda Iiraan iyadoo safaaraddu u ogolaato dadka kale ee muslimiinta ah ee safaaradaha kale jooga inay kula tukadaan masaajidka sidoo kalena waxa lagu qabtaa munaasabadaha salaadaha ciidaha islaamka iyadoo aan loo kala eegaynin